أنا waxaan kugula talin lahaa inaad dadkan dhibaatada wada iyo balaayada wada inaad ka wada daadso dad dalka iyo dadka u shaqeynaya inaad gobolka mudug oo xilal u wada dhigtid mideeda kale magaaladan oo laba jirka injineerka looga dhigayana in laga daayo oo maalinku roob dhulka ku soo dhacana oo daadanaya alaabtay banaanka taala habeenkii derbiga saacada ilaa wajisiga dhig wallaahi billahi tallaahi magaalada shiidan ku noqonay waa wareernay ilaahay gaarka waa dhamaatay markii shilinka la waayay soo dhowraal waa dhow yakhraada u dhowra wala soo aragtay maanta Saciid Cabdullaahi Dani imaashiisa waliba caawa inoo imaaday wallahi si fiican baan u arkaa horta inuu taageeraan u hadhaba madaxweynaha ragii aad u taageeray baan ku jira gobolkan aad iyo aad baa looga taageeray waa sugaynay oo soo habsaamay aad iyo aad baan soo dhaweynaa madaxweynaha marka de talooyinna waa siinayna magaaladan talab badan bay u baahan tahay yani xaqii booliiska ha noqoto xaq garsoorka ha noqoto adoo shaqada dawladda oo dhan musuqmaasuq badan baa jira marka madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu u dhabagalo u fiirsado ma garanaysaa qof kasta meeshuu ku habboon yahay la geeyo ilaa waxa hadda shaqaynaya dad yani sax uma aragna annaga mid kale waxaan ka codsanaynaa magaalada burbursan meesha aan taaganna waa argadi waad arkaysaa xabad laami ah ma laha magaalada shaqo badan bay u baahan tahay waxaan ka codsanaynaa madaxweynuhu abaar sii jooga magaalada oo wax badan loo dhabagalo oo waxa weeye xoraan badan uu sameeyo dadka uu la sheekaysto ma gartidiga waana soo dhaweynaa kulli koojar madaxweynaha oo madaxweynihii ku soo dhawaabay Sheekh Queen waa dhawaa abay macaan abay soo aragtay imaashaha madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani oo waliba caawa inoo la jooga magaalada Gaalkacyo madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani waa doonaynaa imaashiisa inuu magaalada yimaado waxaan aad iyo aad u danaynaynaa inuu magaalada amnigeeda wax ka qabto waxaan kale aad u danaynaynaa inuu magaalada horumarinteeda iyo quruxdeeda iyo bilicdeeda wax ka qabto laamiga waa naga burbursan yahay magaalada waxaan ku yiraahdaa amnigeedu waa daran yahay laamiyada lama mari karo maamulka waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa inuu wax ka qabto dhanka amniga iyo dhanka horumarinta magaalada madaxweynahana waxaan leeyahay soo dhawow soo dhawow soo dhawow soo dhawaabay Sheekh Queen waa taa dhawaa walaal macaan soo aragtay maanta imaasheena madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani oo daqiiqada ka hor magaalada soo galay caawa magaalada Gaalkacyo inoo la jooga walaal macaan madaxweynaha waa soo dhaweynaa soo dhawow ku leenahay madaxweynuhu waa madaxweynihii Puntland waa madaxweynihii Soomaaliya 2026 insha Allah marka madaxweynaha waa loo baahan yahay Gaalkacyo aad iyo aad ugu baahnayd marka in Gaalkacyo oo waxyaalo badan oo tabanayso oo insha Allah ka kaafin doono baasay goliisa wasiirada iyo goliisa shacabka waan ugu hambaliyay oo soo dhaweynaa hambaliyaan leenahay madaxweynaha waxaan si gaar ah ugu baaqanaa in uu dhalinyarta reer Puntland focus saaro oo waxyaalaha baahiyaha ay tabanayaan oo ka kaafin karo insha Allah waan rajaynayaa madaxweynuhu madaxweyneeni soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow madaxweynaha insha Allah in aan la kulmo oo waqti la qaato oo hawlo badan baa kala aan kala hadlo baan rabaa laakiin madaxweynaha baahi haysa oo hadda aniga aan ugu tagay ma jirto marka inaan dadku dhaan baahidada ka hadal oo madaxweynaha baahida u qabto ka hadal qofka waxa la yiraahdaa madaxweynaha see Gaalkacyo ku yimid fikirkaaga oo dhiiban lahayd baa la dhahaa marka insha Allah madaxweynaha waxaan faranaa inuu madaxweyne Puntland weeye madaxweynaha hadda sidaadina kor Allah u qaado ma garad marka madaxweynaha waxaan faranaa in aan dhalinyarteena siba dhalinyarta reer Puntland oo mataqaana awood saaro oo mataqaana dhalinyarta shaqo la'aan baa dhalinyarta jidhkowdi marka dhalinyarta inuu hal abuur loo sameeyo baan jeclaan lahaa insha Allah halkan dhalinyarta hadda caawa halkan daawanaysa mid kasta waa macaan caawa hal shaqo abuur ya waxaan ma haysto marka in madaxweynuhu shaqo abuur u sameeyo dhalinyarta la kaashado oo asaga is wareystaan oo dhalinyartii baahidoodii la raajo waxay baahi u qabaan insha Allah marka waxaan rajaynayaa madaxweynuhu inuu baaqaygan dhigeysan doono waxaan leeyahay madaxweynuhu Gaalkacyo jooga insha Allah oo ku soo dhaweeyay anay soo dhaweey ku soo dhaweey Sheekh Queen waa dhawaha soo aragtay maanta imaashaha madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani oo caawa Gaalkacyo inoo la jooga waliba daqiiqada ka hor soo galay madaxweynaha waa soo dhaweynayaa marka koowaad marka labaadna waxaan leenahay magaaladaada baa timid magaalaha ku cusubtaa maada imaanin waa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ku soo dhawo mar labaad iyo mar saddexaad dadkii maanta meesha kugu yimaaday waanu ku soo dhaweynaynay xafrinu darasa madaxweynaha waxa u dirinaa magaalada Gaalkacyo midda koowaad horta dadkeeda waa ka howlgabeen oo micnihii waxba uma qabtaan hadday wax u qaban lahaayeen afka hor intay wax uga qabtaan bay lacagaha ka cunaan
marka madaxweynaha waxaan dhihi lahaa magaaladan waxay kaaga baahan tahay inaad wadooyinkeeda kaliya ma ahe musuqmaasuqa ka jiro dhan anu waxaan kugula talin lahaa inaad dadkan dhibaatada wada iyo balaayada wada inaad ka wada daadiso dad dalka iyo dadka u shaqeynaya inaad gobolka mudug uu xilal u wada dhigtid mideeda kale magaaladan oo laba jirka injineerka looga dhigayana in laga daayo oo maalinku roob dhulka ku soo dhacana oo daadanaya u maleemayo gobolka mudug wax joogo dhan inay xalaal ku dhashaan waa wax mooryaano wada tuuga marka xaaraanta gurihiina ageenaysa ilmihiina bay ka jaran tahay dadka ama si wanaagsan ugu wada qabta hadii in wax ugu qaban karina waxa tiraahdaa waxa ma qaban karna xilka waa wareejinaa bari waa inay xisaabtooya kitaabka aan marteen oo ilaahay aad hortiisa ku marteen baa xisaabteedaan hortaala dadkiina wax ma uniimiinan qabanin dhaartiina waa marteen marka tan aakhire ninkay niitaalaaya dalka dadka joogo madaxweynuhuna uu kamid yahay inuu muxuu dadka la xisaabtamo baa wanaagsan hadda wax ka qaban karaa wax ka qabta intaas aan u dhihi lahaa ku soo dhabeesh qarkuyn walaal waan dhaway ma sha Allah walaal soo aragtaa maanta imaashaha madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani oo daqiiqada ka hor imaaday gaalkaayo caawina la jooga wallahi madaxweynaha imaashiisa aan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol aad baan ugu faraxsanahay laakiin shacabka reer gaalkacyood ee Puntland gaar ahaan aad baan u dhaliilayaa waayo wax soo dhaweynaa iyo wax farxad mid loo nuujin maanta madaxweynaha qof walba sumeeridiisu fadhiyay baa lagu kala ruuxay aad baan shacabka cambaar uga diray halkaan waxaan leeyahay maadaama maanta aad ka saxateen birito hambaliyo sacab badan la soo toos oo ka intaas aan dirayaa madaxweynaha maanta maxaa fariin u diraysaa madaxweynaha waxa uu dirayaa inuu birito noo soo baxo oo shacabkiisa in badan uu salaamo oo dhax socdo yaa baan u dirayaa birino soo baxo insha Allah ha toddobeesh qarkuyn waa ku dhawahay aad baa maasantii soo dhawaad wala soo aragta maanta imaashaha Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha oo waliba caaw soo galay imaashiisa say kula taadiyaan wallahi abaayo madaxweynaha imaashiisa marka koowaad waxaan leenahay madaxweynaha welcome ku soo dhawow dalkaaga iyo dadkaaga ku soo dhawow gobolkii aad ku lahayd awoodda badan oo ku soo saaray waqtigii loolanka adag waxa weeye ku jidhay intaa kadib aad baan waxa uu faraxsanahay imaanshaha madaxweynaha waxa aan rajaynayaa madaxweynaha haddii codkayga uu maqlayo wax fara badan baa waxaa la rabaa in uu ka qabto in horta marka koowaad degmadu way baaba'san tahay xag laami hadday noqoto wadooyin hadday noqoto haddii waxa weeye system horumareed ay noqoto dhan kasta gobolku aad buu ugu baaba'san yahay asaga waxaa la rabaa inuu isla xisaabtan dhaba uu ka gaaro sidii ay magaaladu ay horumar ay u gaari lahayd waxa weeye magaaladan waa magaaladii sida qiimaha badan looga waxa weeye doortay waxaa la rabaa marka haddii ilaahay idmo inuu waxa kan la yidhaahdo sida u dhaqsiya badan inuu dib eegis uu ku sameeyo degmada soo dhawla ku soo dhabeesh qarkuyn waa dhawaay qarkuyn jawi degan okay soo aragtay imaashaheena madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani oo waliba caawa inoo imaaday magaalada gaalkaayo imaashiisa say kula taadiyaan ma sha Allah alxamdulillah waa wax aad u weyn waxaan leenahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani welcome to mudug soo dhawow mudug oo nabada soo dhawow gaalkaayo nabada oo saraakiil iyo ciidan iyo dhammaan ay wada shaqeynayaan iyo shacab gacmaha is haystaan waxaan leeyahay madaxweyne bulshada gobolka mudug kuma kala harin aad bay ku soo dhaweeyeen gaar ahaan dhalinyarada waxayna u baahan yihiin mar walba inay kula kulmaan siiba ahaan gaar ahaan anigu oon jeclahay mar walba inaan madaxweyne kula kulmo sababtoo ah wax badan baan garanaysaa aan aad uga shaqeeyey si aan garanaysaa aan kula kulmo maadaama aan gobolka mudug joogo gaar ahaan degmada gaalkacyo waxaan leeyahay madaxweyne fadlan inaan kula kulmaan jeclahay aniga iyo weliba gabadhan iqra ku weyn adile imaashaha anaga ugu dartay waxaan kugu dari waayey sababtoo ah wax badan baan wada shaqaynaynay qof aad igu qaaliya tahay bulshadana aad ugu weyn mar walbana waxa wanaagsan ka shaqeeya ma garatay marka waxaan leenahay madaxweyne hambaliyo soo dhawow aragtay imaashaha madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani aan u arkaa madaxweynaha Dani lacagta inoo diiday lacagtii Soomaaliya inoo diiday muxuu ii sheegayaa wallaahi billaahi tallaahi magaalada shiidan ku noqonay waa wareernay ilaahayow
gaalkacay waa dhammaatayba markii shilinka la waayey waaba noogu soo aroore waxaa nagu soo aroorey dhishoo dhanna noo imaad maxaa ka hadlaysaa warra waa silacsan etoobiyaan yaacayo lugaynayo warheede $10 markaa aniga ore aamis ay naga aamis baadaada was $10 markaa ani ku shaqaynayay $3 nin ku shaqaynaya yimid oo etoobiyaan markaasaa leega doortay aniga dhanbo silac saxriir meeqaa kira leegu leeyahay mataqaana 20 maalmood dani haddiis wax ii bedelayo iga bixiyo kirada iga bixiyo war marbe lacagta kirada waa imse lagu leeyahay lacagta leegu leeyahay $250 $250 baa lagu leeyahay والله runtaa kuu sheegay ilaahay iimaankayga $250 baa lagu leeyahay ها waa lagu siinaya insha Allah حتى alaabta banaanka lagu daadiyay alaabta banaanka lagu daadiyay miya alaabta banaanka taala habeenkii derbiga socda ilaahay jiisiga dhig dani anolaado xasan maxamuud dhulka galo nacalad baa dhashay maqlaysaa hadaa wax laga bedelayo wallaahi billaah taa waa silacsannahay silacaan ku jirnaa khayrta silacaan naga bedelo ilaahay ka cabsi hadda birima iga bixinaysaa birimu kaa bixinaya hawlwelin dani baa imaaday kirada wax ka soo kaa bixinaya farax ma maqlaysaa madaxweyne dani waa taageersanahay madaxweyne kor Allah ka dhigo laakiin waxaan u sheegayaa madaxweynaha kunkiina waa naga tuuri war kunka marka tuuray rafaad aragnay lacagta kaashka marka tuuray rafaad aragnay haa shime aakhira madaxweynaha waxaan ka codsanayaa inta aniga dhifaat aan ku jirno kirada iga bixiyo waa rafaadsannahay magaciigana waa akaako oo sheeg habeen daba halka imo ya habeen daba halka imo waa saddex